بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan Soomaali Maxamed meel walba ay joogaan waxa inoo socda gabayadii taxanaha insha Allah maanta waxa gabayga la yiraahdaa balwada waxaanu ka hadlayaa balwada iyo dhibkeeda wuxuuna oranayaa balwadu boga iyo beerkay baabiisa banaan cad ku dhigtaa balwada inaad u baahato xaraaro ba'an weeyo lagama xaragoodo boodh iyo basaas iyo ka muuqdan bisaarado badanka jidhkay bedeshaa balwadu waa balaayo aad baratay waa jar aadan ka boodi karayno iblis xume kugula beegsadee balwadu baad iyo biyo ka baahi ballaaran ruuxda u bislaato bas lagama dhargee bud aad qaadato iyo dagaal lagama baxo balwadu qayrka aad la baratabi lahayd bay kaa reebtaa been kuu sheegtaa ballan gali weydaaye balwadu bacadka iyo kulaylaha barafka iyo dabaylahay u babac dhigtaa naftuna bukootaa balwadu baal bay kuu yeeshaa badda iyo beriga ku duushid wax bilaa macno ah bay ku boboonisaa balwadu baadi bay kaa dhigtaa bulshada kaa socdaa dayacdaa baahido ruuxdu balan bashaaye bidhaanta iyo quruxda beeshaayo bini'aadnimada ka baxdaayo noqotaa bahal laga baqee berigaad yarayd sidii lagu soo barbaarshay balwadu kaa leexisaa buugga iyo tacliinta barbar martaaye booqasho iyo badhaadhe balwadu kuu diidaa barwaaqo barakada kaa xijaabtaa laguu baroortaa barkinta seexataaye balwada aan barbaarta uga digno bisinka iyo wacyigelin ballaadhan iyo bulshada barno sidii looga badbaado aan warkeeda badino diinteenna bilan bilow ilaa dhammaad barbar kastood ka eegto nafta umay banayn wixii u darana wayna bayaamisay balwadu waa bad aad baaxaad degayso dabcigay burisaa boqorka eebba bari inuu balwada kaa bogsiiyo waagii bariyaba waad mahadsantihiin dhammaantiin dhalinyaroy hoy balwada iska jira yaanay mustaqbalkiina beri burburine assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu